maxaa u dambeeyey degmada doolow dhacdooyin ka dhacay iyo taliishuuta oo galabta ka ambabaxay magaalada kismaayo oo ilaaladii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ka degtay iyo sanatar ka soo jeedo gobolkan gado oo si adag oga hadlay xaaladda ka jirta gobolka gado kuna tilmaamay arrimaha laascaanood qodobadaas xasaasiga ah ayaan halkan kugu hayaa barnaamijka hadduu idin soo gaaro sii sheergareeya meel fogna gaarsiiya waa anigoo birta calanka oo idin leh kulanti wacan oo wanaagsan haddaan qodobka goowaad u galno waad ogeedeen shaqaaqooyin ayaa ka dhacay degmada doolow ee gobolka gado mahmaahba waxay ahayd dhurwaagii aroore cagana ma keenin caloolna ma keenin cadaaladdii labada mar gobolka gado ku soo noqotay markii u dambaysayna ninkii sargaalka ahaa ee wiilka yarkaa dilay ayay la baxeeyeen oo la tageen diyaaradda saarteen ciidan badan uu saarnaa oo gorgor ah muqdisho markii la geeyeyna fantashiruu fil ardi baa ka dhacdo waa la sii daayey waana maqan yahay oo haddii doolow wixii looga qaban waaya ee maxkamaddii doolow ku xukumi weyday uu ninka ku dilay muqdisho markuu tagana wax ku xukumaya iyo wax daba istaagaya inaysan jirin oo umale walow ay sanatarra ka hadleen iyo xildhibaano haddaan u soo noqonno degmada doolow aan u soo noqonno dhibaatadii ka dhacday waxaa si toos ah hawsha u soo galay ciidamada aan deriska nahay doolowna nala degan amniga eelaboorka iyo ka ilaaliyo ayaa si adag u soo galay waxayna sheegeen siyaasado isdiidan iyo arrimo isdiidan inaan degmada doolow mar dambe isugu imaan karin laguna qaban karin qodobkaas way caddeeyeen tillaabo adagna ay ka qaadi doonaan waayo ayaguba amnigii qaybkii waxaa lihi maxay ayaga ka galay waxaa ka galay ayaga laftirkooda rag baa wax ka gaareen dhibaataa soo gaarto garoonka ee amnigiis hayeen baa qalqal gala hadda anugu dhihi maayo hebel baa la joogay iyo hebel bay isla joogeen iyo hebel baa ka dambeeya dhihi maayo barnaamijkaas waa mar kale laakiin etoobiyada meesha degan ee doolow dhex degan ee laboorkana waardiisa way taqaanaa ciddi falka ka dambaysay ama soo abaabushay waaye halkaas ayaan degmada doolow iyo qodobka koowaad kusoo gabagabaynaynaa qodobka labaad ilaaladii madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ka degtay magaalada kismaayo adaha soo socdo hadduu rabbi raalli ka noqdana wuu ka degi doonaa madaxweynaha reegadana waxay sugayaan in madaxweynaha markuu u tago qumbihii lasoo siiyo uu gado toos u soo aado reegadana u fadhiisto war jiraba cakaaru imaan horeyna waa inkugu sheegay fadlan madaxweynaha taabo si aad u hesho axmed madoobe fadlan axmed madoobe taabo si aad u hesho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ninka la yidhaahda axmed geedanaar waa iskun qof ha raadinina wax kale ciddii wax kale ka dhaxulaysa ayadii u taallaa laakiin muhiim waxaa ah haddaad dowladdu raacday waxay wadatana raac waxaan wax yar tusaale inkaga tusayaa horeyna aan inkugu sheega dhowr bilood ka hor aan inkugu sheegay shuruudihii uu hordhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk shuruudihii la hordhigay ee axmed madoobe uu hordhigay ee ahayd ciidanka gorgor ee geda farmaajo geeyey ka soo qaad kuwoodii u dambeeyey markii ay shalay geda ka duuleen madaxweynaha safarkiisa maxaa ku soo aadiyey waa tii reegado loo sheegay ayadii dhaqankoodaba loo sheegay inuu madaxweynaha kusoo hormari dooneen maxay tahay isbeddelka dib u fakira dibna u baara maantana warkaygaan meel adag ku qorta saddexda qofeed kala raadinaysaan qofba qofka kaluu u dhigmaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo axmed madoobe iyo xamse ha kala raadin waa hal far horeyna waa inkugu sheega haddana waa idiin sheegayaa ilaaladiisii way tagta rabbow khayr ka dhig wuxuu gada la imaado iyo aragtideeda waaye laakiin reegadow adinkuna sii tashada tashada dhul waa toli karaa taaka labadeeda adinkuna go'aan midaysan iyo hadal midaysan iyo mowqif midaysan kala guurguurkan iyo kala orodkan iyo kala soxulduubkan inta daysaan hal arrin oo midaysan iyo hal hadaf oo midaysan iyo hal xisaabtan oo midaysan la taga kolba iskuma raacaysaan intaasna waxaan ka leeyahay safarkii madaxweynaha waa qodobkii labaad qodobka saddexaad waxaan halkan oga hambalyeynayaa soo dhoweynayaa garab taaganna dhammaan shacabkana caawa gobolka gado ku dhaqan farxad geliyey warka ka soo yeeray sanatar xasan dheere baarlamaanka hortiisana uu runta kaga sheegay
dilal qarsoodi ah iyo madax la dhameeyay israakiil la dhameeya waxa ka dhici jirtay laascaanood wuu u soo hadal qaato wuxuu ku yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu rabaa sidii laascaanood oo kale inuu gada ka dhigo bal hadalka u fiirsada sidii laascaanood ka dhacdo kale ayuu rabaa inuu gada ka dhigo qodobkaasna wuu ku diiday in lagu ansixiyo arrinta gadana wuu ka hadlay hadaladiisina waxa ka mid ah bal ila daawo dhibaatada laascaano uu hadda ka wado Muuse Bixi teeda kale iimaanay xasan sheekh Soomaaliya ka sameeyay lama ansixin karo sharcigan hal qodob oo la qaato ku bijiro maxay yeelay hadda waxa dhacay gada shil ka dhacay laba sarkaal baa lagu dilay labadaba qarax midna gurigiisa loogu xiray midna baabuurkiisa loogu xiray dowladda halkan waxay ka dirtay maxkamadda ciidamada qalabka sida dad shacab iyo ciidamo isugu jira la soo qabtay waa la xirxiray guddiga dowladda ay dirtay haweenimo inta nimankii dadka ka mid ah wali aan 18 sano gaarin la baxday yay foosto biyo ku jirin inta bac madaxa guriyada ku rubeen waan ku dhintay waxayna sababtay dad kale inay ku dhintaan ku dhaawacmaan dadkii dhamaa oo maxkamadda iyo cadaaladda loo diray waxaasay sameeyeen aniga marka waxaan qabaa sharcigan maalin horaan sheegay waa mid la rabo dadka Soomaaliyeed in inta dhumada looga xiro siliinga la geliyo la rabo lama aqbal karo sharcigan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi